Somaliland ku hambaliyeen doorashooyinkii isku sidkana ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee dalka ka dhacay sidoo faafaynta warkan inoogu hayo wariyahayaga ayaan le mudakar gudoomiyaasha xisbiyada mucaaradka ee Somaliland ee u ciidiyo wadani ee dalkani Jarmalka ayaa hambalyo u diray shacabka Jamhuuriyadda Somaliland waxaana ka hambaliyeen doorashooyinkii golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee dhawaan ka dhacay Somaliland waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay afiyeenka jaaliyadda Somaliland ahna gudoomiyaha xisbiga UCID ee cadaaladda iyo daryeelka Maxamed Deeq Ciise Maxamed Case ayaa waxa uu yiri ay xisbiyadii mucaaradka ahaa iyo muxaafidkii iyo beesha caalamka oo idinku hambalyeynaysa doorashada qiimaha iyo qaayaha leh ee u dhacday Jamhuuriyadda Somaliland waa maalin farxad leh waa maalin taariikhiya oo Somaliland soo martay waxaan doonayaa inaan halkan idinka xasuusiyo dhalinyarada Jamhuuriyadda Somaliland muxuu ahaa Allah ayo maxaa nin daran daafta hore sheexshay siyaasi 30 sanadood soo tirinayay ee afartooday watay qabyaalada ku tilinayay maanta xilligiisii baa soo dhamaaday cadceediisii baa dhacday xidigii daawan jiray xalay madowbuuxa oo aan uga jeedo siyaasadii qabaa'ilku way soo dhamaatay waxaan leeyahay shacbiga reer Somaliland xaafid iyo mucaaradba Somaliland waa la dhisayaa siyaasaddu ma la isku riixaya mooyaane Somaliland wada jecelahay waa dalkeenii waynu dhisanaynaa wax wanaagsan oo khayrana naga fishaan leeyahay dhammaan shacbiga reer Somaliland meerkiisa joogaan oo hambalyeynaya lama doorto qabiil reer Somaliland shacabku hadda wuxuu fahmay in la doorto qofka qofnimadiisa aqoontiisa iyo kartidiisa laandheernimada la sheegaya waa aqoonta ma aha qabiil ma aha reernimada xildhibaanada golaha deegaanka ee baarlamaankana waxaan leeyahay si wanaagsan oo qurux badan ayaa cod qurux badan leeyay siiyay dadkiina u shaqeeya hadaa tiin golo deegaan iyo hadaa tiin golo baarlamaan cadaaladna ku shaqeeya oo shacbiga ka mid dhaliya waxay doonayaan hankooda waxaan u mahad celinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi labada gudoomiye xisbi waxa kale oo isna halkaasi ka hadlay gudoomiyaha xisbiga wadani ee dalkani Jarmalka Cabdisalaam Sheekh Maxamed ayaa ku dheeraaday hanaankii u dhacday doorashooyinkii golayaasha wakiilada iyo deegaanka iyo dimuqraadiyadii 20 sano ugu dambeeyay ka hirgeliyay Somaliland bulshada reer Somaliland doorashada say u gashay ee doorasho wanaagsan oo macquul ah oo nabadgelyo leh oo horumar leh oo Afrika oo dhan ku dayanaysa ay u sameysay Somaliland oo dhan kaga horeeyaan oo ay sameeyeen guul taariikhi ah waxa ay doorteen labadii xildhibaan ee ugu qiimaha badnaa bulshada Somaliland labada xildhibaan oo qabyaalada aan iyo cunsuriyad la'aan iyo lagu doortay cod aqlabiyad leh oo aan even Afrika hore uga dhicin waxaan codsanayaa oo aan xisbi ahaan codsanaynaa oo aan qurb ahaan codsanaynaa in bulshada Somaliland ay nabadeeda ilaashato oo aan nabadda wax khalkhal la keenin sidii doorashada loo qabtay loo ilaaliyo axsaabta mucaaradkana aqlabiyada iyo kongareeska ay isku raaceen loo daayo talada waxaan rajaynayaa inay soo bixi doonaan xildhibaano dalkan jiheeya oo la xisaabtan dawladeed iyo mas'uuliyad qaran oo hufan oo shacabku mahadiyaan ay iman doonto waxaanu kaga baxaynaa ku gabagabeynayna waxaan leenahay bulshada Somaliland wax wanaagsan baa qabateen adduunyaduna way soo eegaysaa nabadda iyo horumarka ilaashta waxa uga mahadnaqayaa oo tacabka iyo dadaalka galay oo galiyay xisbiyada mucaaradka labada xisbi mucaarad iyo madaxweynaha dalka iyo komishanka oo iyaga laftigooda si walaan feer u sameeyay doorashada ويلا مدكر MMTV جرمالكا ولي daawadayaal halka nagala socotaan waa shaashada telefishinka MMTV xaruntiisa dhexe ee magaalada Hargeysa wararka kale ilaa haatan soo gaadhayana daawadayaal waxa kamid ah قدر لقرش كاي بحسن قدر دوني ماينو قدر بربلو يا إسلام يا مسلك النبي محمد يا نو استاقر يا نو قربة يا عبد النبي محمد أنا يا عبد النبي محمد يا نو قربة يا مسلك أولادي يا كينا إذا تيجي ما كينا طبعا كله يقال عمك وروح أولادي ولا حابسني الله تسوكر يسي حابسني إسلام ما أحد ومدني محمد بشاكته وعاقل فرماجة لحقه وقاطي لحتى